اوكي اشرب مع ست سؤال شو كنت بيسوى waxaa jira asxaab gobolka degan oo igu xiran marka hadii uu jiro dad kulay imka dadku isku wada dhibaataysan yihiin dad waxaa jira xagga sharciyada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتو السلام يا هالكني ويحيى لايف عم بلا صوتان ما أنتو حلت شوقا ليبان يا عبد الرزاق أو كبرت النهاية ما أنتو حد شوقنا إيرفور رانتي ومالي سبتيا أنت يمكن شفتان عنو وان بحني هوا سوق على والآخر ربعنا أحيانا كلا دون على السؤال السوق شامنه حدا ما أنت عصوم مدو وبلارنت هاي حدا وحنعرف ميسكا وشيء وين الحين الكيني دولين الشيء وينه أصحابته waxaan leeyahay sabti hadda jiifa dibadda u baxay hawo soo qaata liban bogsado liban bogsado waxaan halkan aad uga salaamay asxaabtada qaaliga marka hore afur xidhan diiwaar waqti badan qurba waa joogtaa ana ma soo waxa weeyaan afsaniyo qurba wax badan baa waxa laga baranayaa waqti badan qurba waa joogtaa qurba waa macallin ma diyaar ka faysanaysa live faat dhex fadhida waxaan ka faysanaysa salaam saaco aad iyo aad wax salaamay nabto waa waqti halkan joogtay hooyadii aabahay dhammaan waxa weeyaan maanta casmadu balaaran tahay waxyaabada ka hadlaynaa waxyaabada bay tusi doonaa waxyaabada inaan hore u arkin baan tusi doonaa maanta oo magaalada waxa weeyaan yaxya tv maanta marti badan baa yaxya live waxa weeyaan martida badan baa doonta waxaan leeyahay soo dhawaada asxaabta waxaan leeyahay niyo sabti hadda jiifa sabab ku diinayniyo qofkii ugu horeeyay Soomaaliya ee aragnaa ayaa waxay ugu dhino xadiigaysa dad qabiil ku weydii dad ugu dhino xadiigaysa dad reer Soomaaliland waxaan ku dhino halkani raantii waxa iska ma jiraan Soomaaliyoon marka sheekadii ugu yaabka badnayd macnaha nin reerkiisa raadsanaya okay nin reerkiisa raadsanaya dadka kale waxa kale ugu dhacay anigoo ciida ayaa waxa iska soo dhiibay gobolkan ciid maxaa wadaa ciid yani anigoo wadan ku cusub ayaa gobolka iska soo dhiibay dabeetana niman baa intii waxa ku dhino waxa doonayaan iyo wadanka ku cusbay meel kaamina dhigaysan waxa lagu waqti waa waqti habeena waxa sheegtaan iyo qabiilka tahay sida qof lagu raadiyo isla markiiba ana waxa igu soo dhacay in qabiilkayga yani aan qarsado iyo waxa si aan hadhow dibad u gelin maxay la wadanka qurbaan markii isku soo dhiibaad garanaysaa qof kasta oo qabiilka u sheegtaa waxyaalahaas ay gula yaab badan isku ugu yaab badan okay hadda meel baan fadhinaa isbadan joognaa waxweeyaan kullay waa masiiraha waraysanayna casuumada maxaad ka leedahay dadka idoo sameeyay maxaad wallahi horta casuumada anigu baa casuumay garanaysaa fiican qofku inuu naftiisa ka raaxaysto caqliga dadku waxay sugayeen macnaha inay casuumtay oo meel inuu isku camirnay oo meesha aan fadhino anagu baa casuumay meesha qof badan la fadhino dadku ma oga ما ينوب بس نفطار وحوين قرحي كل بسو وحنا أصحابته وحوين وياس كنت شفته ما يوسع في حد وحوين عاد بس غلط لو سوى كويدينيا سوش كويدينيا في تاي مو ولا شقينا عدماتين صح إنه مو بدو ويش هيا تضمن واحد شرا شقيه ونقل عقب بدنا داني كم موقن أنا كم موقن عالي قوي وردني إنما هذا شرمك إنما هذا شرمك نفتو ذا كم موقن شو الكود اللي كم موقن إنما هذا شرمك هذا بيقول شيء أنا أوجع wadamo badan ma soo maray Yurub sax inkastoo asxaabteed waa qof ka badana hayo inamada Jarmalka way shaqeysan wana rag lacag fiican ee wax weyn qalaw fiican lacag aad fiican ku qaatay Yurub dhexdiisa baa jooga Jarmalka laakiin haddana ay ka muuqato waxa weeyaan waa from baadiyo to Yurub waxa noloshii noloshii waxa wax loo wado wani wax urursada wax tabcada ma xuma laakiin nafta وايدينا إن هذا كيف كتب من الأول هذا شر البركة من الله يا أبي روري وأنا كتب من بدو شيء سوى واحد بركة الشرطة هاي نفتينا كم وجه بركة واحد لين هاي هو أصحاب حاول كلمة الإنسان قلب النوت هاي واسير أحسن إنك على قصة سوريا فلوين هيك دونا وإحنا نروح هنا كوكن كبلاوني نعم واضح كيسا arkaysaan ruuxantii nafteena waa inaynu ka noolaynaa maxaa yeelay lacag baa la wada qaataa ruuxantii lacagta waa inay kaa muuqataa waa muhiim inaad dadkiina u dirto laakiin naftaadana ayaa boqolkiiba boqol ka muhiimsan adiguna has qadanin aad iyo aad
waan salaamayaa cunto wanaagsan magaalada soo wareegi doonaa waqti wada qaadan doonaa insha Allah دلك وبحي ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتو السلام يا dadka ku xiran YouTube channel-kayga maanta waxaan soo booqanay mulan qaali abshir oo ah dhalinyarada ugu aasan hadaan idhaahdo ama dhalinyarada ugu yaqaan gobolka dhan Turiga abshir waa ku soo dhawow markuu hore asxaabta isbar magacaagu saxan soo dhawow waan dhawow walaal guulad markaa ku mahadcelinayaa waxaan salaamayaa asxaabtaada ku xiran YouTube-kaaga magacayga waxaa la dhahaa abshir sheekh maxamed yuusuf waxaan ku magac dheerahay abshir ciro waxaan deganay magaalada Airport muddo 3 sano soo dhawaada walaal guulad okay aad ma santo walaal qaali bal abshir waxaad naga warantaa dhalinyaro magaalada degan ama gobolka kulli wax ku warqabtaa badankood ma dad shaqeeyaan mise waxa weeyaan dad wax barta والله كليده وساشن soo raacsan hadaan kaaga joogo magaaladan waxa degan dhalinyaro aad u fara badan dhalinyaradaas ku jira kuwa shaqeysa iyo kuwa wax barta oo badnaadaan kuwa shaqeeya inta badan laakiin dad way jiraan oo iskuul diyaariya iyo kuwa iskuulo sare oo dugsi dhexe inta la dhigtaa laakiin waxa uu badan yahay dhalinyarada gobolkan degan dhalinyar shaqeysata ma sha Allah bardawad waxa jirtay in yani qof ku dhintay gobolkan Soomaaliyeed oo la waayo qof caawiya marka la sheekana waxa soo baxday in kale waxa jira isaguna xagga kaliya laga hayo oo qof caawiya la waayo marka ma jirto miya jaaliyad Soomaaliyeed ama dad dhalinyaro oo isqaamay oo guddileen oo dadka hadii saalaan dadka gobolka ku degan qof kamid ah wax gaaraan ama qof ka dhinto kale ma jira guddi u qaabilsan meelahaas oo hadii yani wax degdeg yimaadaan ka hortaga badbaadiya guulada wasaashada ka jawaabo waxa jirtay bardhaweyn wiil Soomaaliya wax u dhintay magaalada Geera الله نحرسته horta jaaliyad sharciyeysan oo ka shaqeysa gobolkan ma jirto laakiin process uu jira socdo oo jaaliyad processkeedu socdaa way jirtaa laakiin wali warqadeedii ma soo bixin tawiilka ku dhintay anu waxaan kamid ahaa guddi 6 qof oo isku xilqaantay inay aasaan wiilka ku dhintay magaalada Geera aniga ku ahaa iyo 5 qof oo kale wiilkii si qurux badan oo asna horta waad garanaysaa jarmalka qofku markuu dhinto dhulka loo iibiyaa lacagtii waan helnay lacag badan ma helnay waliba wiilkii si fiican ma aasnay hatta geeri kala ka dambeysay wiilkii hoosna iyana ku dhintay tii laftiisii si fiican man ka yeelo Soomaalida gobolka degan u balacta bixi soo aastay alxamdulillah wiilka kale xanuunsanaya kaliyo xanuunayaan isaga laftiisa qorshihiisa ku jirnaa insha Allah dilay qadaro okay abshir ma san su'aasha ugu dambaysa waxa jira asxaab gobolka degan oo igu xiran marka hadii uu jiro dad kulay imka dadka isku wada dhibaataysan yihiin dad waxa jira xagga sharciyada dad kale xagga problem kala haysto haduu jiro qof hadda daawanayo oo jecel inuu kula soo xiriiro abshir ahaan yani lambarkaaga ama kontaktigaaga siin kara ها واتسيكر صاحب